بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إلهي سبحانه وتعالى يا محد إسكاله مدى اللباد وحان جعلهاي كلمة كوبا oo ku saabsan quluubta iyo jirooyinka iyo xanuunaha ku dhaca inaan isbaraarujino. walaalaha muslimiinta ah, quluubta ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka bini aadamka ah markuu abuuray wuxuu ku dhex abuuray xubin yar oo wax fahma oo ruuxu uu wax ku kala garto xumaanta iyo samaanta, waxyaalaha uu ku tadaburay markuu rabo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arko aayaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa waxyaalo uu ku garto iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray. saa darteed inagoo hadda ay ina soo hayso bishii Ramadaan, bisha Ramadaanna ay tahay meelaha loo maleeyo in quluubta lagu saafi gareeyo, laana waxay dhahaan qofka insaanka markay calooshiisu ay baahato iyo qalbigiisu saafi noqdaa. maadaama bil Ramadaan ayna soo qaabilsan tahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa oon ka baryaynaa inaan bishan ka dhex baxno inagoo quluubteennii saafi ay tahay, quluubteennii ay noo daahir noqotay, quluubteennii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo hagaajiyey inuu ilaahay bishan uu naga saaro. waa midda labaade walaalayaal, qalbiga xanuun baa ku dhaca loo yaqaano amraadul quluub. qofka muslimka ah siduu muuqaalkiisa iyo wejigiisa iyo fayskiisa uu u dhaqayo, saasoo kale waxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah qalbigiisa inuu dhaqo, qalbigiisa inuu ka warhayo waxyaalaha wasaqdaha soo koraysa. saa daraaddeed qalbigu shareecadeenna wuxuu ku leeyahay ahmiyad weyn. ahmiyadda waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay qalbiga iyo ishtiqaaqaadkiisa 132 aayadood. saa darteed waxaan u baahannahay aayadaha intaa leeg ee cadadkaa leh ee haa'ilka ah ee guddigood ka wada hadlaya quluubta iyo xanuunka ku dhaca iyo wanaagooda iyo saafinimadooda iyo saqamkooda, waxyaalaha ina tusinaya qur-aankeenu kariimka ah ahmiyadda uu siiyey, xoogga uu saaray qalbiga in laga warhayo. am lahum quluubun laa yacqiluuna biha iyo waxyaalihii la mid ahba ilaahay subxaanahu wa tacaala aada buu u sheegay. qur-aanku markuu qalbiga uu ka hadlayo kama hadlo cudwigan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhex abuuray insaanka ka cudwi maad ahaan oogama hadlee. qur-aanku wuxuu ooga hadlaa awood iyo latiifo yar oo ruuxaani ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxa uu ku dhex abuuray oo uu ku kala garanayo wanaagga iyo samaha. sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku khaas yeelay aayaadkiisa cidda ku intifaacda inay tahay cidda iskale asxaabu lquluub alxaya, dadka quluubta nool, quluubta wax fahmaysa, quluubta wax akhrinaysa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa fahmaysa. ilaahay wuxuu ku gooni yeelay dadka quluubta nool leh. ilahay subxana wa tacaala wuxuu yihi ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid. aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa aayaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala
waxay u tahay dhikra hanuun wanaag waxay u tahay aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii leh qalbi nool oo wax fahmaya maqal wax raariciya oo si fiican wax u dhagaysta iyo isagii inuusan ahayn qof iska maqan oo qaa'ib ahee qof xaadir ah oo aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala soo qaabilaya aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagaysanaya qofkaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey oo ku khaas yeelay alintifaac bilaayaat saa darteed quluubteennu ahmiyad bay shareecada islaamka ku leedahay waa meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka daalacda addoonka in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum ilahay nabi maxamed sal allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma daalacdo muuqaalkiina jismigiina quruxdiina ilaahay subxaanahu wa tacaala ma daalacdo daalacad ictibaar ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu daalacdo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoonka ka fiiriyo waa quluubta saa darteed qofka muslimka ah qalbigiisa inuu ka warhayo qalbigiisa inuu ogaado waa shay muhim ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa quluubta inuu noo hagaajiyo jirooyinkeeda ilaahay inuu naga ilaaliyo saa darteed waxaan jeclahay xalaqaad aan sii badnayn oo kooban inaan ka tilmaano xanuunka ku dhaca qalbiga iyo sida loo daaweeyo xanuunka qalbiga ku dhaca quluubta waxaa ku dhacda xanuuniyo fara badan xanuunka koobaad ee kansarka ku ah qalbiga waa xanuunka nifaaq ah saa darteed ilahi hadduu ilaah yidhaahdo nifaaqa iyo xanuuniyaha bal xalaqo gooni baan yaan ka samayn doonaa idan الشيخ الفيروز آبادي كتاب كيسا بصائر ذوي التمييز وحكو تلمامي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا إنه كشاقي إلى تضبط قلبي قرآن مركا إنه أنواع ذا قلوب تشاك شاقو ونوت المامو قلب الفلاني حكمة دا كجر توحيتاي أعماش بني آدم way kala tagsan yihiin siday quluubtu u kala tagsan yihiin saa darteed markuu qofka muslimka uu ogaado quluubta noocyadooda waxaa saxiixa oo munaasab oo meesha taalla inuu isweydiiyo noocyahan quluubtu ay leedahay ama qalbiga noocyahan uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xikaayooday qalbigeed haysataa adigu bal dib isu weydii ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubtan uu tilmaamay ee qur-aankiisa uu ku tilmaamay qalbi alfulaani baa jira alqalb alfulaani oon taaban doonno inaad isweydiiso adigu qalbigeeda haysataa waa midda labaade waxaa suurtagal ahaa laba shaksi inay salaad ay wada tukadaan ha wada tukadaanee labadaa shaksi ee salaada wada tukanaya inaysa isku ajir ahayn ooy kala fadli badan yihiin aysa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aysa isku abaalmar aysa ka helaynin waxaa keenaya tafriiqa oo kala saaraya labadan ruux marka horeba isku qalbi ma ahayn saa darteed waxaa arkay laba nin oo wada tukanaysa hal salaad oo baynahum fi ljri markaad fiiriso kamaa bayna asamaai waalardi ah muxuu yahay miisaanku yatafaawatuuna fi lqalbi qalbigay ku kala tagsan yihiin oo isku qalbi ma haystaan saa daraaddeed qalbiga koobaad ilahi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay qur-aankiisa waxaa ka mid ah qofka kaafirka ah ee gaalka ah qalbigiisa فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون كو إلهي سبحانه وتعالى معلنت آخرة عن رميسنين قلوب يغو وحيها يستان وحديدا قلوب كبر إسلوينا أي كجران بها يستصاد رادة قلبي ينكوبد وقلبي كافر كاه وقلبي ينكر للحق وحكستو وناقه وإنكري وحكستو خيرها ما قادنيو wax kasta oo loo sheegaa ninka ma qaadanayo
markii qalbiga koobaad waa qalbi qofka kaafirka uu leeyahay. qalbiga labaad waa qalbiga munaafiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisu wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qalbi buka, qalbi xanuunsan. fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada. ilaahay subxaanahu wa tacaala laabtooda iyo quluubtooda xanuun baa ku sugan. saa daraaddeed munaafiqu wuxuu haystaa qalbi jiran. qofka caasiga ahaa, muslimka caasiga ahaa, isagana qalbi alcaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. qofka caasiga ah isagana qalbi buu haystaa daxalaystay oo angegay oo qaasi ah oo adag oo aayaadka iyo sunnada nabi sal alla alayh wasalam haddii lagu dul akhriyo aysan dhaqaajinaynin. waa qalbi kakan, qalbi soo taagan, khayrku ma galayo. waxaa keenayana macaasidan iyo xumaantan uu ku dhex jiro yaa waxay keenaysaa inuu qalbigii mar kasta oo qalbiga qofka muslimka macsiya uu ku dhaco calaamad waxaa la saaray madow. saa darteed madowga wuu iskori ilaa uu qofku marka ka dambe uu ka gaaro heer wax xaq ah oo gala uusan jirin, wax khayr ah oo garta uusan jirin uu ka gaaro. qalbiga afraad waa qalbiga khawaasu cibaadillaah, addoomihiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala goonida u ah ee uu jecel yahay. quluub bay iyaguna leeyihiin gooni ahoo man khashya araxmaana bilghaybi wajaa'a biqalbin muniib. qalbi muniib ah oo noqosho badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u noqdaa. gef markuu ka dhaco xagga ilaahay buu ku carari. saa daraaddeed waa addoommaha ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaska u ah. qalbigu ilaahay siiyey oo qalbi muniib ah wuu noqosho badan yahay, wuu khaldami, xagga rabbi buu u noqon, awaab waaye, aad buu u noqosho badan yahay. qalbiga ku xiga ee shanaad waa qalbi almuxib, qofka ilahi subxana wa tacaala jecel, maxabada rabbi ay ka muuqato qalbigiisa. waata ilahi subxaanahu wa tacaala fi suurati alqaaf uu ku tilmaamayo uu leeyahay ina fi dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samca wa huwa shahiid. qalbiga lixaada u dambeeya waa qalbu lkhaa'if, waa mid ka cabsanaya, liqaha rabbi ka cabsanaya, ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulankiisa, qiyaamo la kulankeeda ka cabsanaya. qofka qalbigiisuna waxaa loo yaqaanaa qalbi khaa'if oo inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum, quluubtoodu way gelgelin, way cabsan. waa tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay quluubta mu'miniinta. qalbiga u dambeeya waa qalbi alcaarif, waana qalbigu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu ku irsaaqay nebiyullaahi ibraahim ilaa man ata allaha biqalbin saliim. saa daraaddeed waxaa muslimiinta ku habboon oo ku wanaagsan qof kasta oo muslim ah inuu ogaado qalbigii noocee buu haystaa. quluubtii hadday sidan u qeybsamaan, quluubtun ay tahay asaaska acmaasha. waan tambiihin doonaa fadhiyaha dambe hadduu ilaahay yidhaahdee qalbiga in la ilaaliyo, qalbigaada aad ka warhayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubteenna ha inoo hagaajiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbi wanaagsan oo xaqa maqlitaan badan oon xaqa ka santaagan ilaahay hana siiyo. hada wabillahi towfiiq, wasala allahuma wasalam calaa rasuuli lamiin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.